Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal soo dhawaada. Richard wuxuu ku nool yahay Afrika gaar ahaan tuulo yar oo ka mid ah Ghana. Wuxuu baraa ardayda kombuyuutarka isagoon haysan wax kombuyuutar ah. Haddaba sidee wuxuu sawirada ku sawiraa waxyaabaha kombuyuutarka uu ka kooban yahay sida muuska, shaashada kombuyuutarka, ardayduna way ka daba sawiraan. Richard wuxuu ku barbaaray tuulo yar oo ku taal Ghana taas oo aan lahayn haba yaraatee adeegyada aasaasiga ah iska badaa inuu kombuyuutar helay. 20 sano oo ka mid ah noloshiisa wuxuu ku koray isagoon arag wax tiknoolajiyad ah. halka daqiiqo oo kombuyuutarka Janice ku helo wuxuu isku dayi jiray inuu wax badan ka fahmo. Isagoo hadlaya wuxuu yiri markii iigu horeysay aan kombuyuutar arko waxay ahayd markii aan dhammeeyay college-ka. Waxaan aad u jeclay inaan horumar sameeyo. Richard wuxuu go'aansaday inuu barto cilmiga kombuyuutarka wuxuuna bartay cilmiga computer science isagoo dib ugu noqday tuuladiisa si uu carruurta u baro tiknoolajiyada caalamku kala hormaray. maalinka ugu horeysay uu fasalka soo galay wuxuu dareemay in ardaydiisa inaysan awoodin helitaanka kombuyuutar. Richard wuxuu go'aan ku gaaray inuu isticmaalo wuxuu awoodo oo ah jeestada iyo sabuuradda. wuxuu toos u dhexgalay bixinta casharkii ugu horeeyay isagoo sabuuradda ku sawiray qaabka uu u egyahay shaashada kombuyuutarka iyo sidoo kale minibarka, muuska iyo waxyaabaha kale oo uu ka kooban yahay kombuyuutarka sida keyboardka. waxaan isku dayaa inaan u sawiro ardayda qaybaha kala duwan ee kombuyuutarka. waan ogahay oo si fiican uma sawirin laakiin waxaan rabaa inay la tartamaan carruurta kale ee adduunka ku nool. carruurtu waxay ka daba sawiraan dhammaan casharadii uu ku sawiray sabuuradda. mustaqbalka markii ay awoodaan inay iibsadaan kombuyuutar waxa u sahlanaanaysa isticmaalkiisa. sanado badan kadib Richard wuxuu ku soo biiray social media taas oo sahashay in shirkadda Microsoft ugu deeqdo kombuyuutars gaaraya 27 laptop ah, 27 tablet, 27 miis, hal projector, hal printer iyo sidoo kale 137 uniform ah. dhowr bilood kadibna waxa iska soo daba dhacay caawinta iskoolka isagoo helay kombuyuutars badan. ugu dambeyntii iskoolku waxa uu yeeshay kombuyuutar lab. hadda ardaydu xaqiiqdii way isticmaali karaan kombuyuutarka iyo internetka waxayna haystaan wax aysan weligood ku riyoon. waxaynu la soo degnaa abiska ugu dambeeyay. waxaan kaloo isticmaalnaa bitcoin iyo dogecoin. bal ka waran dadka dunida ku nool kala bar ayaan awoodin inay kombuyuutar helaan. waxaana qaab dhismeedka kombuyuutarka laga tusaa sabuuradda si ay u ogaadaan waxa la dhaho kombuyuutar. markii hore aan shaqadan bilaabay aad bay igu adkayd oo maan haysan kombuyuutar balse ugu dambeyn waan la qabsaday. ardaydu markii ugu horeysay aan gacanta ku dhigeen kombuyuutarka way ku adkaatay isticmaalkiisa. markaad dhahdid left click ku dhufo waxay ku dhufanayaan right. markaad dhahdid keyboardka enter taabo ma garanayaan balse ugu dambeyntii practicalka markay badiyeen way la qabsadeen. mahadsantahay daawashadaada. fadlan haddii aad muuqaalkan ka heshay like saar, siina share garay oo la wadaag asxaabtaada. Assalaamu calaykum.